Jabuuti dalkaygay. بسم الله والصلاة والسلام على طه الأمين في كل وقت الواحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفتح بكاعو ودل إيه دبد بإذن كالسلام يسمد الرجبوتي وحا سلام يا عاق إسماعيل وحا سلام يا تبغلل وحا سلام يا دولة دمان بان سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warkiyo baxardaada isagiyo boqshadaysan raadiyoina bukaaco halaga dhageysto waa qayladaan waa badbaado qaran waa dhilooyin waa dhacdooyin joogto ah oo soo noqnoqday siday ballantu ahayd waxaan ku bilaabayaa Gadiidshalladiyo Cumar waa shahiid gacan ka xaqdaran baa dishay maleeshiyaadka oo magafe hogaanka u hayo ee booliska waxa yarka yar ee muwaadinka afalka foosha xun loogula kacay loogu dhagoroobay ama se uu ku mutaystay wax cadaalada iyo wax garsoora oo xaqiina ka soo yeeray ma hayno qaranko isku duuban iyo hooyadii qoran waxaan u heelanahay u haraadanahay waa cadaalad iyo garsoor dhaba iyo gacan ku dhiglayaashii oo cadaalada la horgeeyo intiiba waad ka gaabisay Caaq Ismaaciil waxaad u xaglisay cadaalad darrida waxa qasab nagu amarka inaan ku niraaho xal ma haysida xilka wareeji waa dabuubta qayaxan ee reer Jabuuti diyaar ku leeyihiin mar walba oo Gadiidshalladiyo Cumar maqashaan reer Jabuuti faataxada umara waa shahiid gacan ka xaqdaran baa dishay in ilaahay naxariisiisa janno ka waraabiyo taamarkan ka gudbo waxaad naga haysataan Lieutenant Fuad Yusuf Ali duuliyaha ciidamada cirka laba xidig leh Fuad Yusuf Ali ayaad wali sidii gabood uga haysaa oo caafimaad u diidantahay oo cudud ugu maalaysa oo dhibaataynaysa oo laga dayrinaya oo xanuunsan xaquuqdii nin muwaadina oo maxbuusi lahaa ayaad ka xarintay waxa aad uga xarimaysaa eed u loodinaysaa eed doonaysaa inaad u gumayso ninka aad adeerka u tahay daamanka buuran leh Mabutu Sese Seko wihib ayaad u gumaynaysaa ninka ciidamada cirka aad u dhiibatay eed adeerka u tahay aqoonta gurcud ka socda garashadana ilaahay ku gaabiyay waayo nin caqli leh oo aqoon leh haduu leeyahay falka uu ku jiro iyo dambiga uu ku jiro adiguna kuma aad garbiseen isaguna kuma sii dhaga maaragtay indha cadaadeen marka waxaad go'aansatay inaad Fuad u gumayso oo qorta uga joogto taasi ma dhacayso aku sheegay Caaq Ismaaciil Fuad fagaaruhu ku keenay intii dhimaydna waan khatimayna anaga gabood kala soo baxayna isagii inta baadilka ku xiran adiga iyo ragga aad mahadisay eed hareeraha iska dhigteed leedahay qaran baan reer ku daafacayaana ashahar baayiga qudaan beetana war jiraaba cakaare bal inaad qaranka reer ku daafacdo iyo inuu qaranku ku jiro waa loo joogi doonaa hadii amaanada la hayo waydiyo iyo maaragtay wiiraduna aday dushaada ka qayli cisho dhow waanad ogtahay wadiga habeen iyo maalin jiif diiday ila maalintii maaliin lagu dhaxdhacay wadiga soo jeedka badiyay raarti baad yaran libaadha barqalibaaxaad yara seexata barqadaad seexata sabab waxay tira barqalibaax baad yaran limaadha oo meel yaro kursiga ku limaadha adaa seexda habeen oo dhasaasad u taagantihiin fal iyo falag iyo jimba doonaysan dalkiya dadka inaad ku muquunisaan laakiin taa waa laga baxayde Fuad Yusuf Ali aniga kula hadlayna qaranka Jabuuti isku duuban baa jeelka kala baxayade adii afarta wiireedadii adeerka loo yahay bal waxa aad keentaan iyo waxa aad samaysaan waan arki doonaa hadii reer wax lagu baajinayo amba reer qaran ku dhismayo hortaajira meel ku gaari lahaa laakiin falxumadaadi baa iftay waa laydin nacay laydin ma rabo harajaano iska socda caruuraha iyagana iska soo daaya xoolaha aad dhacdeenna dhiga dambi wixii aad gasheenna waa laydin kula xisaabtami oo cadaalad baa ifi hadaad moodayso in sida aan qoobka laagaga xidhnaan waad riyoonaysaa 9 jir baad ku riyoonaysaa ee xishooyo wax isku falo qabrigaaga iyo qiyaamahaaga u tiro attaqilla qaaf min rabbak waxaad caruuraha kula kacayso masaakiinta ee saaxiibul ciyaalka ee qurunkiina intuu dhacay iska dhaqaaqay sideeba naloo nici sideeba naloo oran sidan sideeba noola hadlay maxaa tihiin idinku sanku neeflaatiina maxaa tihiin waliba sanku neeflakii u liitay baa tihiin oo daalimiine oo ummadii dalkii dadkiiba dulmay
maxaad tihiin idinku harajaan baad fadhidaan maxaad tihiin dad idinkaa u liitee awood ma leh 4 qori iyo 4 beebe ay soo iibsanayaan bay moodayeen inay dadku yihiin oo dalka ku haysanayaan war dalka waxa lagu yahay dawladdu waa shacabka dalku wuxuu dal jiro ku yahay waa shacabka taa hadii laga baxana idinka cirka roobka og wala iska kiin qaban sida ayaxana la idin xirayn tay qasabtana waa la idin buufin sunta ayax ayaa la idin buufin oo umada waa la idin ka qaban in badan baa dad buufiseen oo sun siiseen maanta waqtigiinii baa yimiday zaman boodayo ka hor yimiday oo ka horjeeda oo kula shaqeyneen baa yimiday kulli zaman loo rigaalaha dama waliga mayna taagnaan baad moodi ma qodbi baa taado iska soco aqli iyo ciraabo meesha kuma hayside iska soco foolxumadaadii baa socota iyaa socota kitaabkii aad baalaha jirtayna uu ku qaban ha dheeraata ha dhawaato marka caruurahan yaryar ee masaakiinta ah siiba Fuaad Yuusuf Cali waxa igu maqala gabadhiini ma waantooda ma weynaato ina cilmi khatari ayaa fariin dirtay erga rag dirtay Fuaad hooyadii ayaan doonayaa inaan arke maxaad ka arki ina cilmi khatari ma waantooda ma weynaato ma xishooto illa ma yaxyaxdo oo damiir iyo dadnimo male waa wasiilad wax loo diray soo qaadiyo waray sii qaadamo ina sharaf iyo aqoon kale male idagayso dhagaha furnaaya ina cilmi khatari xildhibaan oo xaal qaado markaan adiga ku arko magacii xildhibaan inuu xaal qaato waa markaan adiga iyo sansaankaaga iyo sifada aad u socoto arko xildhibaan oo dhaniba inuu xaal qaataan jecelahay waayo sharaftii xildhibaanka agtaaday ku dhimatay marka Fuaad Yuusuf Cali hooyadii maxaad ka dooni maxay ku sheegay maxaad si adigu tahay laga soo doonaya ana Fuaad soo daynayada maada Fuaad haysta adigu wariyaa tahay wasaalad baa tahay eta parallel qurunka u falkisa inta xun ugu jirto waxa fiican ugu ma jirtid inta xun iyad ugu jirta eta parallel waana lagu ogyahay marka maxaa dadka u sheegay laga soo doonay adi Fuaad waa dhaladkii Djibouti ma sida aad moodaysaa inuu yahay maaratay shafeec taadada ku dhalatay abaha shafeec Allah u naxariisto magacaad sidatid kiiniba ma wali miya lagu sheegay safiic cilmi Jibriil Allah u naxariisto cilmi Jibriil yoo ahaa magaca uu sito waayo waa shafeecde marka Fuaad shafeec ma sitade Fuaad Yuusuf Cali uu sita magacii aabi Yuusuf Cali oo dhaladu sitaade marka wareerkan soo daba yaacaya ee intoodii xumayd iftay ee wata dadka dad u liita anigu shaqo ku mali bal heerka aad isgaarsiinayso aad nin dhan oo boqol ah hooyadii oo sarkaal oo baylooda leedahay ana siiday yaa ismudaado who are you waxaad nolosha iyo dadnimo ka tahay maad is ogtahay waa inaad hoos isku eegtade hoos isku eego cirbahaagan yar midmadowna hoos u eeg intaa ma ku farayaano intaa ayaan ku farayaa fariiso oo in ku leeg dhulka soco meel walba dalaqda ha haynine ana soo dayn ku maxaad ku soo daynay adu maxaa tahay eta baralo to proclamer kumbani kuleli dayacan ayaad u ciidan tahay oo inta xun u soo fulisaa oo darbeebedi kartesedna intaad dhex tagtay iska dhigtana wax keenayso hiro lagu yiri xishooyo wax isku falwaa lagu bartay 4 cishaana ku hadhay 4 days ayaa eta parallel u hadhay adna 4 cisha ku hadhay hadaad moodayso inaad Djibouti wax ka tahay xantaada ma ogid xantaada ma moogtahay waa lagu keenay xantaada hadaad moogtahay waa lagu keenay magacdaada waa ogtahay ma waantooda ma weynaato mana waantoobid mana weynaanis mana yaxyaxaysid ila qofku markuu damiir iyo dadnimo leeyahay yaxyaxayo dib u gurtaay kam yaqbala lagu facsharay eta parallel ku bahdishay oo soo taagan tahay damiir iyo dadnimo aan lahayn dad damiir iyo dadnimo leeda meelaha kama aad muuqateen I feel sorry for you waa qofka damiirka iyo dadnimada lihi maalin qura hadal xun bulshada dhexdeeda laga yiraahdo dib leeyma arkeen maasha waa adiga soo taagan dalaqda haye arka fidmeer baa tahay iska fariiso meeshaada fidmeertaada ahaw waxa xuneed ku foogantahay ku foognow Fuaad Yuusuf Cali iyo hooyadii iyo reerkooda faraha kala bax lugtana ma tiid faraskana ma tiid hagee dadka kala qaaday Fuaad waa dhaladkii Djibouti nin loo baryo ma Safiya ina cilmi khatar nin loo baryo ma waad khaldantaan u malaynay ma kuwiyaad soo dad guraysaad moodaysaa Fuaad
waad khaldantay baan u malaynayaa hawaad khaldantay qoliyaad waraaqaha populationka uga sameynaysa baad moodaysaa fuad waa jiridii Djibouti waa xundurtii Djibouti waa dhaladkii Djibouti hooyadiina inay ka sarreyso mooyaane kaama hooseyso maashi libaaxaas ay dhashay iyo qaar kale oo badan marka waxay ka soo doonay adi xisho iyo wax isku fal xisho caaqa iyo etaa parallel baad filinada u matashay iyaga ku eedanow iyaga iyo waxa ay ku dirtaan u fulinayso inta xuna ku eedanow dadkan ka dhaxbax raga aad soo diratayna waxaan leeyahay war xishoodo reeraha ku soo noqonina mar dambe xishooda oo reeraha ku soo noqonina mar dambe fuad nin ay dumar u taliyaan maaha fuad waa qaran in cilmi khatarina ka sareeyay mawaantoodo ma weynaato qaranka Djibouti weeyaan marka fuad ha ku meereysan gariirtana ha ku wareejin marka xaqiina ku ekaada fuad indhihiina shana ayaa jeelka lagala baxaya idinkaana bedelaya kooxdiina bedelaysa shixnadiina ila shixnad xumada Harmuus baad kamid tahay adigu xishooyo meel fadhiiso oo ka hadh oo dhulka in kula egsaco oo taakada aayar dhulka dhig hadii kale afar cishaad aamustay waad soo noqotay Soomaha wiilkan baagadiyo naaquudihiiba soo noqda inta hadhayna waan dhameystiraynaa inta dhiman degdeg baan u dhameystiraynaa adiga naaquuduhu falka aad ku jirtiin waxa aad ku jirtiin iyo xumaanta aad ku jirtiin iyo xoolaha aad dhacaysiin oo dhan waan keenaynaa waligiinba kamaradaha ka dhuundhuunta bukaacana sawiridahay aanu sawirkiina maanta uma baahnin markaan u baahnaa waan fuliyay marka stop baan idin leeyahay ka joogsada falka aad ku jirtiin Djiboutina waxaan u sheegayaa ka kaca fadhigo dalkeena dhacsan waxa soo miiran baa layna hor wada shixnadahaas adarkeysiina fawaaxishka taamarkan ka gudbo waxaad naga haysatiin Yusuf Maxamed Cali Gabase wali sidii bujeelka ugu jira sarjanka jeerta ee dulman ee lagu tacadiyay ee abajahal Ismaaciil Ibrahim ku tumanayo marvingeyna ku daawanayo talaabo dhar magaalo waxa soo miiran iyo waxa soo falxuma isaga noo keenay ma caaqo haylan waxa soo ka helaa meed ba isaga weeyaan iyadoo ka socdaa isagu ka socdaa ma hayna wax kale ma hayna anagu wax kale ma hayna de naruuriya nasteexa kale lagugu imanaya caaq Ismaaciil ma jirto de inanka yar miskiinka maxaad ku haysataa miyaad ka hadashido sii daayo tidaahid ilaan jeertu yahay waa askariye kuwa badan oo dambi galayba oo idinka sii daayo guryaha ku haystee mise isaga eedana loo ahayn adeerna looma aha ujeedadu waa caynkaade kii isaga wuxuu ahaayay beendaa adeerka waa ahayd hooyo u sheeg mood falaay waa kan wareegaya adduunka ee kalba diyaarad ku gooshaya Yusuf Maxamed Cali Gabase gabootad ka hayanin baatili abemali baysemali to ka habana ma ama gara kiimete Ismaaciil Ibrahim sabadke ama Maxamed Jaamac kimal baaro yimete taaga awkad ka hitritanam isniiti batanto emaati ba sina lebaytu waytakianu maariga maya sini xakil sultaanama awka sultaanama toogda sini kaariga nu Djibouti daylokinuku waa in dhalinyarada reer Djibouti aad saraacdiin oo baadilka ka gilgilatiin oo ragga walaalihiina ee dulanka lagu hayo adiidiin oo soo wada baxdin baan idin ka codsanayna taasaan idin sheegayaan ha ka yeelina qurunka ay wadaan ha ka yeelina falxumada ay wadaan ha ka yeelina kala qaadqaadka iyo qabyaalada iyo qurunka ay daadahaynayaan ay ma shukaynayaan iyaga shukeeya qabyaalada iyo qurunka iyaga shukeeya hadayna qabyaalada ahayn Maxamed Jaamac muxuu jeerta ku milkiyay aqoonteedii cilmigeedii ma lehe abajahal muxuu ku milkiyay aqoonteedii cilmigeedii ma lehe aw dhaladkii reer Djibouti ee cid walba laha caaq Ismaaciil waa ka dhashixnadaadii Soomaa waxaasaad noo keentay markaasaad ku oran qabyaaladan ka horjeeda dhagahaagii afkaagu isma maqlaan de waa waxaan ku leeyahay aqligii baa ka suulay marka xishooyo carruurta yaryar ee masaakiinta ee dulmka ku haysatiin sii daayay iyo qaar kale oo badan waad haysatiin oo dibo intaasoo sano ku jira waxay sameeyeen iyo waxay dhaceen iyo waxay dileen male tuugtii xoolaha dalka dhacday ee Turkiga iyo meel kale soo camiraysana waa daawanaysaa waad u riyaaqaysaa waayo adiga de la sanfiya oo sidaan wax u qaadaya dalkan maxaad u qabatay maxaad tarteen biyo la'aan ka horaan la'aan dawo la'aan waxay u muhiimsanaa weeyaan nolol maalmeedka weeyaan biyuhu ma hayna de biyo intaasoo milyaarna waad ku soo jebisay Ethiopia tiri biyaan Ethiopia nooga soo qaaday waxaad nooga soo qaaday male kooraan Ethiopia biyo Ethiopia waxalbi Ethiopia on the pond of Ethiopia waxa ku sababsanayna anagu ma garanayno anaguna dhuunteedii baan nahay oo aan ka liidana caaq Ismaaciil adaana baday maaha
daranyada iyo silic iyo saxariirta marka iska soco xal ma haysid xilka wareejiyo weleeli rajbut kuma rabaan iska soco sankan ka haysana adiga shixinad xumidaada iyo taa baraleel oo proclamer naftan saarayda ay sixirka sir moodeesu malhaadsan in habeen seexanayna waxa xun ku foogan hurdadii baa idin ka duushay qadaba raxmaan baa idin ku soo dhicida waxay hurdooyinku iniga duulayaan waa waxaad gasheen iyo dhiigii aad gasheen iyo ummadii aad leyseen baad isla wada saqadaysiin na dhaafa magac xumadiina iyo dar xumadiina na dhaafa waxyeeladiina tamar ma hayneen na dhaafa taa markaan ka gudbo reejibuto waxaan idin sheegayaa maandaashanaad bay u xaydan yihiin ilaan ma xishoodaano ma yaxyaxaane hadday maandaashanaad u xaydan yihiin bal ka fikira maantuu dalku halkaa marayaa dhibaatadaabaa ina haysataa silicaabaa ina haysta waxaasoo dulmi iyo tacadi iyo xoolaheeniyo sidaa loo maaraynayo loo maalayo oo maamul xumo ina haysato miyay maandaashanaad inagu soo noqonayaan dee hadday nagu soo noqdaan waa ba iyo balanbal iyo barakac iyo silic iyo saxariir dee mataasaa diyaarutii reejibuto ilaahay baan idinku dhaarshay mataasaan qaadanaa ma dulligaasaan ogolaanaa maandaashanaad caqligii dalka lagu maamulayayba ma lehe markaan runta ka hadalno cibrigii shaqaynayayba ma ahe 70 markuu yahay 80kii uu cagacagaynayo muxuu maamuli isagii baa la maamulayaa ilaahay baan idinku dhaarshay war soo baxa inagoon dalkeena burburinayn inagoon dalkeena duminayn inagoo dalkeena jecel iyo dadkeena kuwanaan isdhaafino dalka iyo dadkay cadow u yihiin maalkay cadow u yihiin ciiday cadow u yihiin calankay cadow ku yihiin dadkii ciidan iyo calankan u soo halgamay cishaba mid bay taariikhda ka masaxaan si iyaga on loo hadal hayo 99 kuwii la yimid iyaga de markaa ma waxaasaan daawanaa maandaashanaad caaq ismaaciil intuu cirku kuu jiraa sidaa aad u kari laadahay eed kolba aqal uga dhex ciyaysiin ayaa dhabtii ammaanta adduunkan ku maqashiinay marag baan ka dhignay reer Djibouti way kaceen waxa iyagana waan dhacsanaynaa waan idna dhaafaysiin dawlad xor oo xalaala oo nin walbo reer Djibouti xaqiisa ka helo iska dhex arko ayaan samaysanaynaa horta jiraba wuu ku qaday waxa aad wado filinadan iyo musalsaladan aad wado waa wax horay loo arkay kuma rabno kuma doonayno cirka ma gaadhnay dhulkaan cuskanay na dhaaf cirib barakale nagu dhaaf hadaa damiir iyo dadnimo leedahay dalkan iyo dadkan aad u naxayso oo in yaroon dib u eegayso xilka iska wareeji sida u dhaqsaha badan iska wareeji ciday doona reer Djibouti ha u dhiibtaan kalsoonidii waan kaala noqonay xilkana waan ka xayuubinaynaa katiinadna waan kugu xidhanaa gabood baan ku geynaynaa ka warantaa way dhacdaade hadaad moodayso inayna dhacayn way dhacaysaa ilaahay idankiisana rabbiga weyne waaxida ilaahay inuu nagu simo yaan rabbiga ka baryayna adoo lagu maxkamadeeyay oo shabaglihii lagugu sido oo saliilduus fadhiya waa lagu xukumi hadheeraad ha dhawaato baadil iyo dulmi baad dadka reer Djibouti ka gashay ciil baadna batay waadna fororisay dulmi baadna batay tacadi baadna batay xoolaha iyagii iyo maalka iyagii baad balaayo u loogtay meel daran baad ka tuurtay waxa iyagii caruurtayadii baa wada shoomeero wada ciyaysa waxaad noogu filantood noogu takoorata anag na dhaafte iska soco kuma rabne iska soco xal mahay sida xilka wareeji waa dabuubta qayaxanayn kula hor joogno indha ilaahay mariidana dhaaf oo humbultaada nala soco raadcadkiina dalkii baad fakhri badeen dadkii baad fakhri badeen gaajaad badeen silic baadna badeen waxaad noo haysiin anag aad sumalhaadnay meel loo roon yahay male ku shaqaaliya ku shoomeera waa isku mid dadku way wada cawlayn way wada gaajoonayaan afarta adiga ku raxlaysa ee ku tunta ee amaanta ku siiso xoolaha on baa ka nool dalka kuwaana waa soo qabanayna hantida waa lagu la xisaabtamay umada taamarkan ka gudbo maanta waxaan galayaa budgetka ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche wasiirka waxbarashada sare iyo cilmi baarista ayaan galaynaa waxa weeyaan budgetka ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche waxay tahay 4 milyaar 973 milyan 633,711 faran 4 milliards 973 millions 633 711 francs weeyaan ministre et son cabinet 57 millions 264 645 francs wasiirka iyo kabineegiisa
750 مليون 246,645 فرن. utilisation de biens et services waxa weeyaan dakhliga ku baxa hantida iyo maaragtay waxyaalaha loo qabto adeega waa 30 مليون 56,969 فرن. 30 مليون 56,969 francs. korontada waxa ku baxa 1 مليون 336,681 francs. waa مليون 336,681 فرن. waa kooraanka macal xaafadooda ku tiriya wasiirka xaafadiisa iyo kani maaragtay directeerka jaamacadda yarka yara directeerka jaamacadda isaguna ismahadiyay iyo ninka nabiil iyo waxa soo dhan kulli isku wada dar kulligoodoo dhan xoolahaas loo heshiiyay. biyaha 338,132 فرن. 338,132 francs waxa weeyaan loo oogaha biyaha. frais de télécommunication et internet 1,592,156 francs. waa frais de télécommunication et internet telefoonka iyo internetka waa 1,592,156 فرن. waxay ku leeyihiin frais de transport à l'extérieur mission waa 10 مليون. frais de transport à l'extérieur mission bay ku leeyihiin waxa weeyaan gaadiidka markay shirarka u baxaan waa 10 مليون. haddana waxay ku leeyihiin indemnité de mission à l'extérieur pour mission d'état waa 10 مليون. waa isku midun waa mission d'état iyo mission iyo frais iyo indemnité waxa weeyaan qanjiiradii halkii yarada wax lagu xadeeyay. haddana waxaa jirta utilisation de biens et services 57,450,000. 750 مليون 450,000 wuxuu waa milyoono 100,000 iyo 5,000 iyo ma jirto waa milyoono bay ka bilaabmaysaa. arrin kale jirto iga yaabis autre charge waa 1,114,434,733 francs. waxa weeyaan 1,414,433,733 فرن. halka marka maxaa hoos imanaya bourse ba hoos imanaya ardayda bourse études à l'étranger allocation de stage waa dadka dhalinyarada bourska la siiyo ee waxbarashada dibadda u tagta. lacagtaasi maxay noqotay waa 1,024,365,733 waa 1,425,356,733 فرن. haddana waxaa jira frais de transport extérieur des étudiants djiboutiens waxaa laga bixiyaa transport baa lagu leeyahay ardayda reer Djibouti waa been waa 90 مليون 69,000 90 مليون 69,000 ka waramade lacagta ayaa jeeriyadii halkaasaan iminka iska helaynaa. lacagta waxa loo xil saaray ninka la yiraahdo Bendac. haye Bendac mod fly nagib hooyo sheeg lacagtaas oo dhan adigu ma jeeraysaa. lacagtaas oo dhan adiga gacantaada ma soo gashaa ayaa wax laga siiyo goormad ardayda ka bixisa transport burskoodii bay kala yihiin 1 milyaar ka baa lagu yirsaa doonta ka dhig wasaaradda waxbarashada sare maxaa loogu deyn waayay iyadoo ha maamusho nagib loo hoosgeeyo waa calaamada su'aal. meeshii dufle meeshii raqle meeshii wax yaalaan bay isaga loo dhiibi Bendac inuu ka sii lacagaysto uu ka sii dhergo de wata. Bendac wuxuu ugu talagalay inuu ardayda cunaha qabto uu kaadida ku dhajiyuna waxba siin ardayda yaryarayda reer Djibouti dibadda tagtay burs ma siiyo laakiin isagu wasaaradda waxbarashada waxba kama yahay secretary general bureaucratic ka yahay maxaa burska loogu cayinay ma sheegi kartaa caaqo ilaan cilmigii aqoontiiba ma lehe uu xoolahan ku maareyn lahaay isaga waxaad weydiisaa see wax loo qaadaa sidee wax meel loo dhigtaa sideen keed u samaystaa halkeen aqal ka iibsadaa halkeen aqal ka dhistaa isaga weydii waa naafadanaad meesha dhigat ilaan waa naafe waa iska handicap markaan runta kuu sheego maxaa loo qarqarin ninku xigaba ilaahay baa kaa xige inuu handicap yahay waad ogtahay ma marka hadda xoolahaasaad ku sii daysay dalkii baad ku sii daysay markaasaad hadhow leedahay nagib baa sidan la leeyahay waa soo noqon waa waxaad isla ogtihiin qurunka ma
idro Djibouti ugu heshiisay inaad ku baabiinaysiin dalkiiyo dadka dee bal weydii xoolaha inta alle wuxuu ku sameeyo ardaydii dibadaha joogtay burs ma helaan iska daa transportku waa isku soo gaar 9 malyan milyaarkan 1 milyaar iyo 114 malyan iyo 434 kun 733 kan faran muxuu ku sameeyaa bal weydii ardaydii Djibouti waa wada bilaa wax aanay toole burse afar qof isagu watoon buu u diraa bursiyada xoolaha kale waa kan baari kaga iibsanaya guryaha waa kan Djibouti ku camiranaya waa kan ilamaan Turkiga iyo meel kasta cararaya cagacagaynaya de inuu handicap iyo taasaad ku garanaysaa markaasaad ku leedahay kana dalkiiyo dadka wuxuu noqon boos aan jirin oo weliga jirin baramaatiirka ayaad u kareeyaysaa caaq ilaan xaal marin baad ku siinaysaa waxaagiiba waa xaal marin iyo mag dalkiiba sidaasaad ku dhaxal wareejisay inaad caaq tahay de waxaa saa cadaynaya ka qaba kan carruurtana waxba uma aha cidna waxba uma qabanaye laba daaraale jaamacadda Djibouti maxay research samaysaa aw ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche aw research ka ay samayso aw caafimaadka ay baadho aw waxa ay keentay biirisay ninkan wasiirkiiyo ninka directeurkiisa presidentka jaamacadda yarka yare isaguna daanax ayaa waxa soo dhan ka dambeeya ma oo dig ka siinaya lacagtii jaamacadda xoogaa kalena idinka laynii keenaade hadda iyagu milyaar iyo 2 milyaar ku tagaan idinka qaata inta kale aye maxaad oranaysiin de ceebta iyo falxumadaas jirta fawaaxishkaas jiro la idinku hayaa markaasaad waliba leedihiin aanay toolay sidanba jaamacadda bijeegeedo qura waa 2 milyaar ee kaalki aye xagee lacagtaasi martaa maxaa lagu qabtaa maxaa loo qabtaa ummadda reer Djibouti carruurtii seri forcé baad ku wada qasabteen dhalinyaradii reer Djibouti qaar dibloomyadii haysto wada shoomeero waxaan Djibouti laga shaqayn baabad ku qasabtaan maxaa keenay waxa maqshad travail jira mar carruurta bartiin waxa aan dhulkan bal laga aqoon shaqo lagu ahayn bad ciyaalka qasab kaga dhigtiin say halkan handicap uga ahaadaan kuwiinuna talada u sii hayaan soo maaha de waxa si aqli maaha dawladnimana maaha carruurta yaryar ee masaakiinta jaamacaddan la hadlaya war jaamacadda idinkaale maalka idinkaale inaad dalkan iyo dadkan idinku wax u barataan oo mustaqbalkii bari waa idinka been buu idin sheegay madaxweynaha dhalinyarada aan ahay guri waa beentii waa cadowga dhalinyarada inuu cadowga dhalinyarada yahay waxaan idinku tusayaa muxuu idin qabtay jaamacadda waa idinka wada fadhiyee carruurtoodu ma jaamacadeennay dhigtaan ma liiseeyadeennii iyo kolleejyadeennay dhigtaan jamais de la vie ma jirto de ilma ay dhaleen oo iskool dawladeed dhigtay ma jirto jaamacadaha u qaalisan bay carruurtooda geeyaan xaggee ka keeneen waa bijeegida carruurta kuwan la ciilay bijeegoodii weeyaan waa kuwan loo diiday waxbarashada bijeegoodii weeyaan waa kuwan caafimaadka loo diiday weeyaan waa kuwan shoomeerka lagu qasbay weeyaan waa kuwan laga ilaaliyay saaxadda inay ka muuqdaan iyagoo aqoontii iyo xirfadii leh ka waramade marka ma waxa saan sugnaan moondashanaad ku sugnaa ilaahay baan idinku dhaarshay reer Djibouti fadhiga aan ka kacno oo kuwani waxba ma aha waa danaystayaale aan isdhaafino dalkeena inagaale inta ilaahay ka sokaysa war ka kaca fadhiga waalidkii intaasoo sano samreeyay laha ilmahaaga ku fadhiisani marka ilmihiisi seri forcé la geeyo oo wuxuu wax Djibouti lagaga shaqeeyaba uu keeni waayo marka muxuu ilmihii ka shaqeyn abi hooyadii buddi dul fadhiisan amba uu waalan yahay amba tahriibku soo galo baduhu isku tuuray maynaan lahayn awal laakiin maanta inaga tahriibka u badantay maxay nagu qasbay de dalkoodii bay ka waasheen carruurtii ay wax kula yihiin caaq Ismaaciil warande maxaad noo orantaana ma been baan noo sheegi been baad noo sheegi de kuwaagu jaamacadaha ma dhigtaan de kuwiina iska day kuwa idinka inila majaalisay wasiiradiina dawladdiina qof jaamacadda Djibouti dhigta male kulli dibadaha carruurtiina geysay waad ogtiin inay jaamacadiinu tayo lahayn laakiin lacagta waad ku cuntiin lacagta jaamacadda loogu tala galay idinka si kale u isticmaala adigan dacaaqada deerka u tay buriska u dhiibay adigan de nabiil yiri ku tumo adiga barzaanga jaamacadda yiri adiguna tamattuc samee annaga inta badan noo keeno idinkuna in yar qanjiiriya magaciina waa jaamacad halkay jaamacadi jirtaa jahannaba meesha fadhide oo carruurtii way ku wada cawlan yihiin ku wada dulman yihiin marka maadaa noo sheegi kara wax runa xaqiiqdii iyo runtii way ka dhamaatay ila waa laga hoos kacay adiguna camaagan damaagan baad iska noqotay hadeed waxa la waxaad ogtahay ma lehe normal kaaf baad ku jirtaa
24 saacadood waad hurdaa lagugu talagalay inta aad hurdo iyo inta aad soo jeedo inta aad hurdaa badante adoo soo jeedaad xuurisaa waayo hurdo qasabaa lagu geliyay dhibic baa lagugu siiyaa goorma soo jeedaade waqtiga soo jeedo noo sheeg maalinta salaasada koosayda mariska amba soo yaro humbul tirahay lagu soo dhabaneeyaa lagu soo fariisiyay lagu leeyahay wasiirada la qosqosal dawladda waxba kama socdo dalkan waxba kama socdo Caaq Ismaaciil markaan runta ku sheegaano amba diidan badoon amba gubo amba qaraxaday ku taala laakiin wixii xaq aan ku sheegay inta laga baqaanay Ilaahay bay ku yaaliin dalkan iyo dadkan iyo adaa dumiyay gacantaaduna ku dumay adaana dumiyay oo maanta heerka aan marayno ee dalka iyagu halka uu marayo halkii uu hooseysay maalkiisana aad wada qaadateen idinka marxaati ka adaana lagu raacan oo lagu la xisaabsan way adiga kitaab Allah noo jaray amba diid amba doon aday ku taala wax kala aad samaysan tareenkan aad samaysateen ee tareen Itoobiya iyo Djibouti ka dhex shaqeeya shirkad baad ka dhex samaysateen flowerkiya keenta ayna tolay ayna fruiga soo dhoofisa transit bay Djibouti ku yimaadeen waxa loo dhoofiyaa Yurub ka waran waa la dhoofiyaa shirkadda idin kaalade harajaan baale maraakiibta boorka maraakiibta timaada lagu raraa flowerada oo Yurub baa la geeyay waxa laga soo guray Itoobiya flero yaad beerateen dibadda u dirtiin dadkiina way gaajoonayaan halkaad faleerada Itoobiya ku beeranayso ma dadkan beertid oo wax fiican u sameeyso dalka ka qurxisid ila waxani waa waxoodii ad ka ilaalinaysid cishaba qolo kula saaxiibaysid cishaba meel geynaysid hadhoon afka dhulka lagu daraye waa wixii shalay boorka ay dubay 3 ku yeelatay iyadoon shaqo ku lahayn boqolkiiba 3 bay lahayd anaana maamuli bay tiri kharash wixii jiray baad kaga qaadateen iyo gubbo ka warande 760 baad lahaydeen maad maamuli garan weydeen maya waxaad ka doorbideen fermataageelkii leynisiiyay ilaa idinka lacag baa idin darane dalkan idin ma muuqde iyo ummadaniye marka Caaq Ismaaciil waad ceebowday iskaga tag meesha waxaad noo soo haysay waxaad noo wada midna ma jirtay shirkad dhan bay ka furteen Itoobiya flowerka dhoofis dadkii reer Djibouti biyo koraan bay ilaahay gaajoonayaan bal ilaahay baan idin ku dhaarshay taasoo mandaashana doonaya inuu ilaahay ku soo noqon xishooyo wax isku fal xisho waa lagu arkay xisho indha xishooda yeelo Allah weyne waahida ka baq dalkan waa dumisay aqli ee tabaran cidlu ku dhigay dalkaaga iyo dadkaagiiba uu ka hor keenay iyo beentiini iyo falagiini iyo falagtiini waa la nacay wax kale iska daayay darogadiiba sida nacnaca u socota Djibouti maxaa looga qaban laayay carruurta inay dulowdaa la rabaa carruurta inay sida ahaataa la rabaa dhalinyarada inay saa u baabacdaa la rabaa afarta ay dhaleena dadka ka muuqdaan ma dhacaysataa kuwan droga aad ugu tala gashay ee doonayso inaad baabiiso waa mustaqbalkii Djibouti maad qabatid magafa diilarka kaarti aan iyo kaarteede tixiyo baa u geeyay maad qabatid ila waa ku haysta xerada aqalka siiyay ninkii u weynaa drug dealerkii hay'adde taa maxaad oran waxa soo dhan baa la og yahay waxa soo dhan baa war loo hayaa kaarti aan kaarteede kaarti turwa kaad saansis meel walba ilaa balbalay ilaa raxiba drogadu waxay u socotaa maxaa ka galay afarta been garjay ka soo gashaa ciidan qabta male baday ka soo gashaa kii kaardakoodkii isaga dilaalka ah traffic darmiga iyo drogaba isaga ka kali ad dhigatay amaagan damaagan waxay subag leh Turkiga aan ku sii socday ku soo socda kolba gori hoos joogsanay kana waa imisada leh waa kaad noo keentay adu maaha ma dalkan iyo dadkan buu kamid yahay uu naxaya uu ka danaysanayaa aduna kugu fadhiya adaana noo keenay qabyaalada aad sheegaysina wataade aw ciidankii qaban lahaa badda aw ciidankii ilaalin lahaa badda badda darogadu geeya hubku geeya isaga weeyaan kullu fidnama adaana ku amru lacagta ku keenaade waa waxaad ka taajirteen ma hubka aad iibinaysiin iyo masiibada aad la wareegaysiin iyo caruuraha aad darogyada siinaysiin noocii u dambeeyay darog baa yaala Djibouti aan Yurub lagu aqoon albaabada furteen meel walba ka soo galaan marka maxaad ugu tala gashay inay dadku saababa u ahaadaan maxaad ugu tala gashay inay baahnaadaan maxaad ugu tala gashay inayna fikirin oo ina maskaxdoodu yarba fadhiisan oo ina hareerahooga eegina maray bahasha raadinayaan iyo maray gaajoonayaan dhalinyaradii reer Djibouti dhalinyaradana waxaan leeyahay yaan leedin